dunidan sideedaba ma jiro qof liita balse waxaa jira qof aanan aqoon halka uu ku wanaagsan yahay. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه السلام عليكم waxaan ahay qaasim maxamed ku soo dhawow muuqaal cusub. dadka dunida ku nool waxay isku dhaafeen hab fikirka iyo aaminida naftooda. waxaan aragnaa dad badan oo ka cabanaya nolosha kana sheeganayo caqabado kala duwan kuwaasoo ay ku adkaatay xalintooda. haddaba adiga daawanaya muuqaalkan ma ka mid tahay dadkaas? mid xasuusnow, dunida ma jirto qof uu alle ka eexday uuna siiyey in ka yar 24 saacadood maalintiiba, balse waxaana kala fogeeyey ee midkeen ka dhigay inuu noqdo guulaystaha nolosha, midkeen kalena uu noqdo mid ka eed sheegta nolosha. waa hab fikirka iyo aaminida nafteena. inaad ka baxsan karto kana guulaysan karto caqabadaha ku soo wajaha waa lama huraan, sababtoo waxaan ku sugannahay daarul ikhtibaaraat. adduunka waxaan u joognaa imtixaan ee ma ahan goob lagu nasto laguna raaxaysto kaliya. haddaba muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 2 qodob oo lafdhabar u ah inaad gaarto hankaaga kana guulaysato caqabadaha nolosha, balse waa haddii aad ku dabaqdo noloshaada. waana 2 qodob ay isku dhaafeen dadka intooda badan. aamin naftaada. gaariga waxa uu ku socdo kuna gaara halka uu rabo waa shidaalka. sidaasi si la mid ah, qofka waxa gaarsiiya halka uu rabo iyo doonistiisaba waa aaminida iyo ku kalsoonaanta naftiisa. mar haddii aad aaminto naftaada oo aad siiso kalsooni ku filan, waxay yeelanaysaa awood aadan horay ugu arag. aamin naftaada awoodaheeda oo aqbal inay ka dhabayn karto riyooyinkaaga wax kastoo ay ahaadaan. kaliya u sheeg naftaada mar haddii ayba qof kale u suurta gashay inuu xaqiijiyo waxa uu ku hamiyey, ogow adigana waad gaari kartaa oo xaqiijin kartaa. ha xaqirin naftaada awoodaheeda oo noolay damiirkeeda una sheeg inay leedahay kartida ay ku samaysan karto waxa ay ka doonayso nolosha, iyo weliba inay gaari karto halka ay ka rajeynayso nolosha. dhabar adeeg. inaad u dhabar adeegto doonistaada ayaa kaa dhigaysa mid ku guulaysta ama ka dhabeeya hadafkiisa. marka aad ku haminayso isbeddel, horu socod, ka joogsiga caadooyin iyo dhaqamo aan wanaagsanayn ay leedahay naftaada, ka guulgaaridda hadaf sida waxbarasho, safar, shaqo, jacayl iyo guurba, intaba waxaa aas-aas u ah dhabar adeega. dhabar adeegu waa u dulqaadashada waxyaabaha ku dhibayo, xanuunada ku soo gaarayo, caqabadaha ku soo wajahayo, iyo wax kasta oo lid ku ah inaad gaarto halka aad doonayso. inaad u dhabar adeegto oo aad ku dhiirato sii joogtaynta iyo kasii shaqaynta waddadaadii guusha. niyadaada ku hay in dhabar adeegu yahay dawada kaliya ee lagu gaaro laguna helo hadafkaaga. tusaale ahaan, dawada aan u isticmaalno xanuunada jirka waa kharaar, balse rajada aan ka leenahay ayaa ah inaan ku bogsoon doono. dhabar adeeguna waa sidaas oo kale, inaad ku sabarto wax kasta oo kaa hor istaagi kara gaaridda hadafkaaga si kastoo ay ahaadaan. kadibna waxay kuu suurtagelin doontaa inaad noqoto guulaystaha nolosha. ugu dambeyn, aaminidda nafta iyo u dhabar adeegidda hadafkaaga ayaa kaa dhigaysa mid ay u hagaagaan qorshooyinkiisa nolosha. qof ma jiro oo soo taabtay macaanka guushiisa ilaa wuxuu aaminay kuna kalsoonaaday naftiisa, welibana u dhabar adeegay doonistiisa. kadib ayuu noqday mid dadku ay ugu yeeraan guulaystaha nolosha, kana diiwaangeliyaan qisooyin iyo taariikho muhiim ah. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatay muuqaalkan oo aad ku dabaqi doonto noloshaada. soo sidaas maahan? hagaag. inta aan goordhow
ku kulmi doona muuqaalka soo socdana waxaan ku leeyahay ahow qof aaminsan naftiisa kuna kalsoonow awoodaheeda. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.